qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaystaay ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badanoo ku mashquulisa uun nin nimanka waxaysta Soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku idhi odaygan maalintaan maadaama waa cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahay kambanigiisa wixii ka lumaya problems jira subaxii lagula soo kala habeeyo subaxii markuu xafiiska yimaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhunteen kuwa waxaasa ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhow ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuu ina yidhi wa ammaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقياس كسوين وكالنوضة ننكا نفتي سكر يا بابا الليلي عن الهوى يعني ضبط النفس نفط وين تكنتروشها وين تكنتروشها معنى دوام محي قلت لها أمثلة بسيطة عنا ذا هداد ودكور شو ويدو ومركي علوشو ديركتات راه بتايسر اسبانو باهني ساد انتي ادعوني جرتي انك بدن ادعنتو بنادمك أول إن بعوني شري أنت أساكو في الليل waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxa la dhahaa appetizers baa laga horeysiiyaa marka بريما أنت عاد cunada weyn cunina appetizers cun shahiyada ku sii furta sidoo hunguri weynaato marka dibirtaba hadana la leeyahay may hadda waxaad u baahantay digestion ka inaad dedejiso wax daaca ka keeno hore oo ku maxaad markaa hore isu tabiris ما markaaga hore macnaheedu waxa weeyaan shahwatul batn baad inaad wax cuntaabad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad muddo wax lagu raaxaysto sida awgeed baa waxay noqotay in marna loo raadiyo wax ku laqsiya marna loo raadiyo wax maxay ka dajiya hadhowna lagu yiraahdo waxaad u baahantay saad u caafimaadda inaad orodo oo boodboodo oo intaanasa marka inaad wax cuntaa haddaad control weydo waxay keentay noloshaadu dhan inay dib ku noqoto dad control weydo sadaraad nafta bini aadamka waxana waa wasaa'il inoogu talagalay inay nolosha ku fidoonsano ولذلك mar haday nooca yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu controli karno nafta inaad adigu hanato waad controli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war aakhira kuwa liibaanay wa amma man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن حبان صار الشيخ الألباني الصحيح قلت الماما يوحولي وريانا ميدينك والرماه مؤمنك بين هذا ومن أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بنبوله وكيدتك النفي حول بكو آمين كران مسلم كما يدين شيئا وقفك أي كرنبات قلان دتكو عرب كيسيق عنتيس رسول النبي يقول مجاهد كما يدين شيئا ومن جاهد نفسه في طاعة الله وقفك نفتيس كل الضرر إلهي طاعة ديس مهاجر كما يدين شيئا أبو النبي يقول ومن هجر عن الخطايا والذنوب وقفك إذا وحي يردن وحي الله صاكوبي قف بنا آدم ما نولشي سسيدو كنترول له وإيمانك سي واحد لغو سيفايي إنا إدادكو كو آمين كرا قف أمانة لأنو نقون كرا وإسلام نمدي سي واحد لغو سيفايي قف دادكو كان نبات قالي كرا إنو نقون كرا وجهادك سي واحد لغو سيفايي قف نفتيسة لا دقالامي كرو حدين كرا إنو نقضو وهجردي سي واحد لغو سيفايي إنو نقضو محي قف ذنوبتي وحكالي كفوق هذا إذا وحين لأن كو وأدونك إنا نقيمه سكرنا adduunka inaynu qiimihiisa garanno waa maxaynu noolay intaynu meeshan joogayna maxaan u baahanahay haddaad nafta iska sii dayso adduunkoo dhan bay u baahantay kuma deeqayo
haddaadse si riyaliya u xisaabtanto waxaad cuntiyo waxaad cabtayo meela digtaad u baahantay daadso wax ka badan waa uun inaad magac ka raadiso hebel waa bilyaneer in lagu yidhaha ama waa milyaneer ama lacag buu haystaa in lagu yidhaahdo waa magac ka raadinteeda badani mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday mae bataan waxan baan qaban lahaa hortaa jiraba laga waa markaa unbay lexjecladu kugu sii badanaysa imika waxaad wada leedihin may anu haddaan xoolo heli lahaa kan baan samayn lahaa waxaas waa ammaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho